السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وناكسن رمضان مبارك دمانتين وايدين وسلامي وانيقو دكتور محمد ليبان محمد ما انت waxaan rabnaa inaan ka hadalno mowduuc had iyo jeer dabcan dadka bulshada qaarkood isku arkaan oo ah kabaabiyada la xiriirto qeybaha hoose ee jirka sida cagaha faraha iyo gacmaha qeybahan gacmaha dhamaan dadka bulshada cudurrada gaar ah qaba sida kaadi macaanka ama sokorta blood pressure-ka ama dhiig karka cudurrada dufanta lipidiska cholesterol-ka dhammaantood way isku wada arkaan intaan u gudagelin barnaamijka waxaan idinka rabaa asxaabta igu xiran inaad kanaalka subscribe gareysaan sii share gareysaan asxaabtiin kale aad u sii gudbisaan si aan u gaarno meel fog kabaabiyadu ama calaamadaha uu qofka isku arko marka uu dabcan uu cudurrada blood pressure-ka ama sokorta ama cholesterol-ka ama cudurro kale oo chronic ah oo daaha oo qofka waxaa la soo gudboonaaday inuu isku arko calaamadaha loo yaqaan bristis ama kabaabiyo lagu hur in qofku uu dareemay in dabcan gudaha jirka ay ka mudmudayaan waxyaabo qodxo ah in kuleyl uu ku furan yahay qeybaha hoose ee jirka cagta uusan dhulka dhigi karin gacmaha sidoo kale ee uu dareemayo kabaabiyo iyo xanuun murqaheeda dhamaan waxyaabahaas maxaa keeno waxa ugu horeeyo ee sababo in calaamadahaas uu isku arko waxaa loo yaqaanaa cudurkan kaadi macaanka ama sokorta waxay ka mid tahay cudurrada ugu halisan ee sababi karo khataro badan oo ugu horeeyo heart attack in keliyaha qofka ay ka fadhiistaan dabcan iyo waxyaabo kaloo la xiriira marka sokorta haddii jirka ay ku badato dabcan waxay keeni kartaa khataro badan sababtoo ah inaysan jirka ku badan ayaa waxay u tahay qofka caafimaad haddii levelkeeda ay dhaafto sokorta qofka jirkiisa waxay blood circulation-ka ay ku sameynaysaa damage sababtoo ah blood circulation-ka vascular-ka wuxuu xididku usii gudbiyaa nerve cells ama cells neuronska kuwaasoo neuronska ay ka helaan wixii energy ah ama oxygen ama dabcan electrolyte si shaqooyinkooda dareen wadayaasha ama dareen gudbiyaasha ay usii qabtaan haddii dhaawac uu gaaro ama sokor badan jirku lagu soo daayo sokortaas uma fiicano qeybaha kala duwan ee xididada iyo neerfayaasha isku socodka dhiigga iyo dabcan neerfayaashii ayay waxyeeleynaysaa waxa ugu horeeya qofka dabcan xirmaya waxaa waaye microvascularka xididka yar ee nerve supply-ga neerfaha oxygenka ama blood face ee usii gudbinaya nutrientski ama electrolyteski ayaa dabcan cilidoobaya neerfihiina shaqooyin fiican ma qabanayo taasina waxay keenaysaa in qofkii lugaha huro oo cagaha uu ku leeyahay qofkan waxbaa iga taagan kabaabiyaan dareemaa dhulka ma dhigi karo markaas waxa waaye calaamadahaas kabaabiyada iyo waxyaabaha la xiriiro waxa ugu muhiimsan keenayo waa sokorta marka labaad waxaa laga yaabaa chronic cases kale inay qofka ku sababi karaan ay keeni karaan sida blood pressure-ka dhiigga cadaadiskiisa marka uu bato waxaa laga yaabaa asagana peripheral neuropathy inay dareemo sensory nerveska iyo motor nerveska inuu kabaabiyo ka dareemo hur badan uu dareemo lugihiisa dhulka uusan dareemin calaamadihii kabaabiyaha gacanta uu dareemo dhammaan waa wax la xiriiro xagga dhiig karka oo qofka aad cadaadiskiisu u badan yahay mar walba ayadoo daawo uu isticmaalayo ama qofka sokorta qaba xataa hadduu daawo isticmaalayo waa laga yaabaa in calaamadii ay kasoo baxaan sababtoo ah waxaa mar walba yaraanaya electrolyteski iyo vitaminskii jirka ku jiray sidoo kale waxaa kaloo sababi karo hypovolumic qofka markuu anemic uu noqdo oo qofkaas dhiigga yaraada waxaa sii yaraanaya electrolyteski wixii danab oo dhan sida dabcan sodiumkii calciumkii potassiumkii waxyaabihii dhan way yaraanayaan waxyaabaha supplementigana ayagana way yaraanayaan dadka kabaabiyada isku arka waxay noqonaysaa markaas inay ka mid yihiin anemic inay u saameyso ama dhiig yaraanba inay keeni karto waxaa kaloo saddexaad ay isku arki karaan dadka cholesterolkoodu badan yahay ama dufanta waxa loo yaqaano aad iyo aad ugu bato sababtoo ah cholesterol levels hadduu marba uu aad u badan yahay uusan soo noqonayn ama daawo qofku uusan isticmaalin wuxuu soo developed gareynaa neuropathy peripheral nerve cells inay damage ay noqdaan cholesterolka waxay xiraysaa isu gudubkii dhiigga xididihii dhiigga gudbinaya dhan ayaa xirmaya taasina waxay keenay kabaabiyo badan qofkii inuu dareemo lugu hur badan uu dareemo confusion uu ku jiro
insomnia badan uu ku jiro, hurdo la-aan ay qabato, haddii jeer uu qofkii ka cabanayo in uu kabaabi uu dareemo, uu dabcan uu leeyahay lugaha ay huraayo, gacmaha ay huraayo, dabcan murqaha saas noqonayo, karambiyan dareema ama xanuun ay ugu taagan. dhammaan calaamadahaas oo la xiriiro dhan waxay noqonayaan qofkan in supplement la siiyo waxyaabo badan oo vitamins ah qofka inuu qaato. vitaminada ugu horeeya dabcan la siini karo waxaa laga yaabaa inay yihiin vitamin B6 ama B6 iyo vitamin B12 isku jiro. waxaa laga soo deynayo gastritis dadka uu qabo ama peptic ulcer ku dhaco, waxaa had iyo jeer ayaga ku yaraado intrinsic factor loo yaqaano, factorkaas oo ka qayb qaato inuu soo absorption gareeyo vitamin B12. marka ay daaweynteeda ay timaado dabcan haddii qofka uu qaato daawooyinkii caadi chronic casekiiska ama pressure ha qabo ama dabcan sokor ha qabo, waa laga maarmaan inuu la qaato micro supplement waxyaabahan essentialka vitaminska ah, vitamin B1 B2 B3 isku jiro ama vitamin B6 iyo B12 calciumka inuu qaato. sababtoo ah waxaa had iyo jeer sii yaraanaya marka waxay electrolyte jidhka laga soo deynaya ama difaaca jirka ah ay sii yaraanaya. waa muhiim marka qofka hadduu sokorta qabo inuu Nerbional forte ama Tryptamine forte inuu la qaato, calciumka inuu qaato si macnaha cagahurka iyo kabaabyadii iyo lugihii xanuunaya dhan ay ugu yaraadaan. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.